shirkadda qodista shidaalka ka waday Soomaaliland ayaa ka baxday waxaana shirkaddan iyo shaqaalaheedu ka duureen garoonka diyaaradaha ee magaalada Bare ee xarunta gobolka Togdheer iyagoo wanba waxay dhanka magaalada caasimadda Hargeysa shirkaddan General Energy oo ah shirkad Turkish ah isla markaasina shidaal qodida ka waday Soomaaliland ayaa muddooyinka ay joogtay gobolka Togdheer gaar ahaan deegaanadii ay deganeyd ka samaysay dhul banayn ballaaran iyadoo baabiisay dhul baaxad weyn leh oo ay ka jartay dhirtii ku taalay goobahaasi waxaana shirkaddani heshiisyo la gashay shirkado muwaadiniin ah kuwaasi oo waday howlo kala duwan oo ka mid ah shaqooyinkii shidaal baarista ee Soomaaliland waxaana soo badanaya cabashooyinka ay soo gudbinayaan shirkadaha Soomaalida ee ku saabsan howlihii shaqeeyaha shirkadda iyo qarashaadkii ku baxay howlaha ay wadeen shirkadda shidaalka ee General Energy shirkaddan oo deegaanada Naqdhabijo Waraabe iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolada Togdheer Daadmareer iyo Saraare ayaa muddadii ay joogtay waxay la kulantay isfahan waan ballaaran oo dhexmaray shaqaalaha ajaanibta ah ee shirkadda iyo dadkii ay deegaanadooda ka shaqeynayeen mararka qaar ayaa shirkadda iyo waliba shaqaalaha iyo dadka deegaanka waxaa dhici jirtay inuu dhexmaro gacan ka hadal sababa khasaare deegaanada Saraar Waraabe iyo Sanyare iyo deegaano kale ayaa gacan ku hadal ku dhexmaray shaqaalaha shirkadda ciidamada Soomaaliland iyo beelaha deegaanadaasi oo ay ugu dambeysay tii ka dhacday deegaanka Sanyare oo uu soo xaliyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka iyo waliba ka degmada Burco sidoo kale waxaa iyana jirtay gacan ka hadal isna ka dhacay deegaanka Naqdhabijo oo u dhaxeeyay beesha deegaankaasi iyo waliba shaqaalaha shirkadda General Energy wararka ka soo baxaya arrimaha shidaalka ayaa sheegay